السلام عليكم. سو دوادا جمعة مبارك. maanta waa jimce kusoo dhawaada dhulkii Lubanta, land of point, land of frankincense. maanta waxaa idin haynaa barnaamij ka duwan barnaamijka skincare-ka. insha Allah barnaamijka wuxuu gali doonaa YouTube isagoo dhameystiran waa arki doontaan waxa ugu weyn oo wadna waa insha Allah taala barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij aan rabno ummadda oo dhan in wax looga bedelo caafimaadkooda biidni Ilaahi Kariim Ilaah u baryana. maanta waxaan rabnaa inaan idin barno barnaamijkan ka hadlayna in badan detox plan. detox plan waa maxay? barnaamij la dhihi karo af Soomaali hadii lagu fasiro waa sun saarid. barnaamijka sun saarid ama qaras bixin hadaa iraado dadka si sahlan ay u qaadanayaan laakiin waa sun saarid. sunta dadka ku jirta maxay tahay marka dadka maxaa sameeyay cuntooyinka maanta la cunayo cunto dhacday cunto GMO laga sameeyay chemicalka ku badan yahay dadka kama warqabaan. waagii hore waxay ahayd dad caafimaad qabna ahayn isbitaalada way yaraayeen dhakhaatiirtu way yaraayeen farmashiyaha way yaraa daawada way yareen waxaasoo dhan waa maxay cuntadeena saxsaneed cuntadeena 30 sano la soo dhaafay isbedeshay waxaasoo dhan YouTube ka ku jiraan insha Allah waa halkaas kala socon kartaa casharada cuntada aan ka bixiyay iyo macnaheeda. hadda marka maanta waxaan rabaa inaan idin tuso barnaamijka detox waa maxay marka barnaamijka waxaa ugu talagalnay waxaa ku jira daawooyin aad powerful ah waxyaabaha aan ka hadlayn intaas oo sano oo ahayd xabkaheena maanta si fiican u sharaxayna sida loogu dhaxdari karo caafimaadkeena iyo cuntooyinka sida loogu dari karo. marka maxaa ku jira barnaamijkeena detox ayaan kor rabaa inaan idinka tuso insha Allah. detox waa maxay? qofka 45 maalmood 45 maalmood ayuu cuntada joojinaya qofka wanaxay markii saas la yiraahdo laakiin cuntooyinka kale u qaadanaya ayaa badan oo cabitaanka u badan maadaama jirkii la dhaqaayo la nadiifinayo. dhaqidaan ka hadlayna waxa waa dadka dharka way dhaqaan guryaha way dhaqaan way qubaystaan laakiin gudahooda waxa ka socda kama warqabaan. gudihii bahallaa fariistay bacteria fariistay fungal baa fariistay maanta saas loo xanuunsan yahay waxaas nadiifinayna marka maadaama nadaafadii kore aan ku guuleysana meelaha guryaheena iyo baabuurteena waxaan nadiifino maanta anaga waxaan ka hadlaynaa sidii loo nadiifin lahaa jirkeena gudaha calooshii beerkii kilihii dhacaankii maxaan ku idhahdaa dhiiggii maskaxdii wax alla wixii jiray xameetidii kaadi haysta wax kasto maxaa dadka ay u xanuunsan yihiin maanta xanuuno badan loo sheegay meesha ugu sakaysa dadka dhan wada xanuunaysa maanta hadda gaas baa dadka wada hayo wixii waa sahlan yihiin in la daaweeyo laakiin hadda maanta waxaan rabnaa barnaamijkan detoxiga inaan ka hadalno haddii Ilaahay yiraahdo maxaa kamid ah marka detoxigeena 45 maalmood cuntada joojinaysa daawooyinka waa qaadanaysa halkaan waxaa yaala nafaqadii khudaarihii iyo wixii lamid ah dhinaca waxaa yaala fruitski waxaasoo dhan waa arki doontaan insha Allah. 45 maalmood qofka labadii saacaba mar buu wax cabi doonaa macnaheedu waxa waa cuntadii waaweyneed baa la joojinaa inta kale waxay noqonaysaa fruit iyo vegetable hilibkii caanihii waxaan daawooyinkan qofka ma banasanayo laakiin calooshii way u fududaanaysaa laana wax la wada shiiday ayay noqonaysaa insha Allah. maxaa kamid ah marka barnaamijkeena number 1 waxa waaye bahasha caloosha lagu socodsiiyo dadka inta badan caloosha taagan sababtan waa fahanay in badan oo ka hadla YouTube-kayga ku jirta dadka bur baa la cunaa especially Soomaali hadaan nahay maanta bur baa la cunaa adduunka dhan burka waa laga cunaa laakiin anaga saa cunaa caadi ma baaha anaga burka cunayna khudaarta wax kama cunno fruitka wax kama cunno waxyaabahaas dadka laakiin ummadaha kale burka iyaga cunay hadana khudaarihi iyo fruitka iyo wixii ku darsadaan kalluunka ay ku darsadaan waxyaabo herbal ay ku darsadaan laakiin anaga saakid hadii canjeero la cunay maanta baasta la cunay caaw bariis la cunay intaas cunto noo noqotay intiina anaga meena sameyn dhulkeenan kama soo bixin. hadda marka maanta waxaan ka hadlaynaa dhulkeen wixii ka soo baxay ama cunto ha ahaato ama ha ahaato daawo ayaa noogu jira barnaamijkeen waa weyn yahay soo dhawaad horta. maxaa ugu horeeya number 1 waa tan in badan aan ka hadlaynay waa lubandegarka wajiga la marsadaa wajiga lagu dhaqaa waxaasoo dhan in badan aan laga hadlay laakiin waxa ka weyn oo barnaamijka waji dhaqa ama nadaafada skinka waxa ka horeeyay daawadan waxaa laga helay waxa ani hadda aan ka hadlaayo masalan ma aha wax maaragtay aan iska leeyahay laakiin insha Allah waa idin soo gudbin doonaa sida looga hadlay Lubanta wadankeena ka baxda adduunka website-yada ka buuxda insha Allah taas waa ka hadli doonaa. number 1 waa daawada lubandegarka ama beeyada. number 2 waxa waaye waa malmalkii ama mare in English
number 3 oo saddexda daawo antibiotic aadka u quwada badan waxa waaye waa xabag hadi ama sweet mare English waxa lagu yiraahdo midda afraad waxa waa xabag cadaad ama gam Arabic sida qof u fahmi karo gam Arabic ama xabag cadaad afartan waa afarta ugu xoog badan aan dagaalka ku galeen tan waa tii caloosha socodsiinaysay intaana waa daawadii maxamed walba la socda saliideeda ayaa la socota luwaanta saliideeda la socota malmarka waxaa la socda saliidiisi baa la socda hadigana saliidiisi la socda inta qofku wuxuu qaadanayaa 45 maalmood 45taas maalmood qofku cuntooyinka markuu joojinayo daawadana ku socota suntiya ka dhaqmaysa number 1 daawo ayuu helayaa oo meeshii wax alla wixii dhaawac uu keenay suntaas oo sida maarta xanuunada maanta magacyada loo bixiyay daawona way u noqonayaan insha Allah taala marka saddexaadna waxay ka qayb qaadanayaan immune systemka intaas marka waxaan ka hadalno oo daawadeena intaan ay tahay mid walba goonideeda waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala hatta waxa yarka ku jira oo fruitka dadka iska fududeystaan maxaa ku jira muxuu ahaa kabsar caleenta dadka kama warqaba inay sunta jirka ka saarto sidoo kale ma pumpkinka ama bocorka inuu lagu sheegay quraanka lagu sheegay waxaas oo dhan waa ka wada hadlaa maanta waxaan ka hadlaynaa markuu programkan dhamaado detoxing inaan ka hadalno waxaan noo xigsan doona food science wax la yiraahdo cuntadeena baranayna maxaa cuntada qofka markuu cunayo inuu xasuusan yahay waxaan faa'iidada kugu jirto maxay tahay sheegana cunayso haddii kana cuntana maxaa dhibkaaga imaanay intaas waa insha Allah series wuxuu noqon doonaa socon doona long time biidnillah intaan marka hadaa ogaatiin programkeena waa afartooda marka hadda ka hor waxaan ka hadlay iyadoo caanaha lagu darsan karo powderka ama lubandekerka budadeeda waa taas hal qaada la qaadanaya haddii la rabo moos cambe babaay iyo caano wixii la rabaa isku marka lagu shiidan karaa laakiin hadda waxaan ku shiidnay fruits badan oo khudaar badan halkaan taan ku shiidnay waa taas waa lubanti oo biyo juice noqotay haddaba marka taas laftirkeeda waxaa laga dhigi karaa malmarkii sidoo kale malmarkii biyihiisa waa kan malmarkii hadigii waxyaabahaas oo dhan waxaa idin tusaynaa waa wax sahlan si sahlan loo qaadan karo habeenkii biyo lagu dhigaa ama isla markaas wax shiidaysa lagu daraa waxaas oo dhan marka waxaan kale oo dhan waa cuntooyinkii daawadan waxaa ku xiga quraacda qofka anaga qaadnay in uu qofka cunto meel kale ka cuno maaha quraacdi baa ku jirta boorashki baa qaadanaysaa sida boorashka loo sameeyo timir yara ku daraysaa caano yara ku markaa kariso timir baa ku karinaysaa caanihi baa ku daraysaa subag dabcan anaga saliidaha isticmaalayno dhan waa idin tusaa cuntooyinka marka la gaaro saliidiyaa lagu daraya caafimaadka lahayd caanihi geel caano lo ari waxaa hesho ku darso boorashkaas waxa waa kii quraacdaada oo cashada anaga la wareegayna cashadana waatan protein badan baa halka ku jira habeenkii caano iyo moos iyo kan baa la isku shiidaya qofka cashadiisa waatana waxaas oo dhan iyadoo sahlan waa soo direynaa iyo sida loo isticmaalo insha Allah moringadan iyadana waxaa lagu darayaa maraqa halka waxaa noo yaal hilibkii iyo maraqi sida loogu daray moringada iyo waxaas oo dhan waa ka hadlaynaa iyo sweet potato ama bataati macaanka iyo waxyaabaha lagu dari doono khudaarta maraqa laga sameeyna ayaa moringada lagu daraya waxaa ku soo haray xabag cadaada iyadana waxaa lagu darayaa fruitska oo lagu shiidayo haddii qofka uu rabo lubaanta iyo inuu isku daro xabag cadaada labadeeda qaado uu isku dari karaa sano kale juice hal mar uu ka dhigan karaa si uu u fududeysto hawsha uu ka dhigi karaa dhib ma laha marka insha Allah waxaan oo dhan marka waxaa rabaa hadda inaa ila fahantaan daawada ku jirto waa afartan daawo oo xabkaha ah saliidaha qaar hadda xabag cadaada oo kale saliid ma wadato laakiin inta kale saliid ay wataan waxaa kaloo jiro khudaaraha halkan marka waxaa yaala kan waxaa yiraahdaa arrowroot waxa waaye waxa ka buuxa minerals badan iyo waxa ka buuxa vitamino badan ayaa ku jira halkan waxaa lagu yiraahdaa kenyaatiga waxaan u maleynayaa in la dhaho duman bahalkaas arrowrootka waa daawo socoto waxaa halkan ku yaala cassava iyadana wuxuu ku jiraa programkeenu ku jiraa insha Allah waxaa kaloo ku jira waxa la yiraahdo sweet potato ama bataati macaan waxaas oo dhan eega wada diyaarsan waa kuwan waa la karinayaa biyo lagu karinayaa si sahlan lagu shiidi karaa hadda waa idin tusaaya insha Allah sida loogu shiidi karo malmalka lubaanti waxaas oo dhan waa lagu shiidi karaa insha Allah waxaa kaloo ku jira khudaaraha noocan
noocan khudaarihii waxaa ku jira waxaanu kalarka ilaahay wuxuu noo siiyey inuu caafimaad aan ka helno macaan iyo caraf iyo wax walbana way leeyihiin kalarkoodana way yihiin waxaa ku jira cabbage-kia ku jira waxaa ku jira oo kale dhinaca fruitka markaan fiirino waxaa ku jira waa kuwan waa pineapple ama cananaas kan waxaan jeclahay hadda waxaan soo helnay isagoo cad laakiin isagoo gudaha ka gaduudan ayaa jira dragon fruit markuu gaduudan yahay more iron ayuu leeyahay batati babaygi waa kan waxaan oo dhan waa maxay fruitskii waa waxaan markay kugu jiraa detoxiga marka waxaa kugu socda nafaqo badan haddana jirkaagii isagoo la dhaqaayo ayaa haddana nafaqo kugu jirtaa waxaan oo dhan programka ku jira laakiin waa sahlantaa sida loo qaadanayo ma dhibano insha allahu tacaala sidoo kale waa kan babaygii wixii wada jarjaran sahlan waa idin tusaynaa sida loo isticmaalo biidni illahi kariim waxaas marka maxaa intaas ku dheer waxaa intaa ku dheer waa kan hilibka waa qayb weyn oo ka mid ah barnaamijkeena waa arkaysaan waxaa waaye hilibkii hadda ariga waaye geel baa la isticmaali karaa lo baa la isticmaali karaa maraqaas marka lagu kariyo kasaabada iyo maaragtay arrowroot-ka marka la kariyo ayaa la isku wada shiidaya hadhow insha allah waa idin tusaynaa waxaas oo dhan waa maxay jirka ayaa la nafaqeynaya hilibku wuxuu ka mid yahay qayb weyn oo xagga borotiinka noo dhisaysa markii qofku maaragtay caafimaadkiisa la soo celinaya insha allahu tacaala soomaalida hore waxay yaqaaneen wax la yiraahdo markuu qofka xanuunsan yahay waa la baaninaya waa intii waxaan wadno qofka marka la daaweynayo ama xataa ka hortag uu rabo inuu sameeyo waa inuu qaybta nutritionka uu si fiican u maaragtay xoog u saaro insha allahu tacaala marka waa kana kabsar caleenta sunta saaraysa mentiga fresh mint iyadana sidoo kale waxaa ku jira maaragtay basashii bahashaan aniga waxaan jeclahay kinyajiga markay toonta tahay midda localka ayaa fiican waxaan oo dhan marka maxaa ku jira arkaysaan waxaa ku jira caanihii boorashka iyo markaas qofkii rabo shayg inuu ka dhigto caanihii freshka ma rabna caano boor ma rabna caanayaha xaashiyaha ku jiray waxaasayto caano haddii 3 maalin kadib 2 maalin haddii banaanka yaalan way halaabayaan kuwaas waa caanaha dabiici ugu dhow inkastoo ay weli yihiin caano lasoo process gareeyay laakiin still waa fresh qofkii heli kara caanihii lo-da ama geela toos uga yimid sidaas ugu caafimaadka badan marka caanihii freshka waa kan the last thing aan rabay inaan idiin sheego maxaa u isticmaalnaa saliidahayna waa kuwan masalan tan waxa waaye saliiddii macsarada saliid macsaro saliid kale ma isticmaalayno saliiddii macsarada waa tan choiceka adig ku jira saa u jeceshahay saliidaha tan waxa waaye qumbe coconut muxuu ahaa butter ama oil labada saliid oo kale waa maxay subagga ariga waa kan subagga ariga haddaa rabto waa ka dhigan kartaa waxaan saliidaha u isticmaali doonto cuntooyinka waxaa kaloo haynaa halkan macadamia oil waa saliid aad yani faadkeedu caafimaad badan leeyahay waa sida looska oo kale nut ayaa laga sameeyey macadamia nut ayaa laga soo saaray soo afartan saliidood waa saliido noo bedeli karo saliido kaloo badan way jiraan oo caafimaad leh sida hadda avocadada haddii la fiiriyo maaragtay dad badan waxay dhahaan olive oilka aniga meel laga soo saaro tuulo laga soo saareen joogi jiray masar ku taalo isku mid maaha wax magaalada yaalo iyo banaanka lagu gado iyo waxa lasoo saarayo marka lasoo saaro siday u egtahay markaan arkay inay kala duwan yihiin waa fahmay inay khayaano ku jirto laakiin markaa saliiddii macsarada hortaada lagu sameynayo isliid ama meelaha maaragtay soomaalida u badan tahay subagii marka waddanka lagaaga keenayo ama meelaha maaragtay africa xoolaha lagu dhaqdo qumbahaas meel uusan oolin ma jirto isagoo organic ah saliidda macsarada sidoo kale macadamia oil waa saliid qaali adduunka dhan qaali bay ka tahay laakiin alxamdulilah annaga waa haynaa dabcan dukaan waxaan furaynaa cuntooyinkii iyo dadkaan ku barayno oo aan gadi doono iyadoo fresh ah iyadoo diyaar ah qofka uu qaadan karo guriga ku karsanayo marka insha allah intaas maxaa haddii kugu boobsiinaya mid walba waxaan ka hadli doonaa xalaqooyin kala duwan oo yar waxaa imaan doona sidee arrowroot-ka ama maraq looga dhigi karaa ama looga dhigi karaa hilib ama looga dhigi karaa shake sidoo kale bataati macaanka sidoo kale bataati macaanka waa kan waa cassava bataati macaanka waa kan cassavana waa tan waxaas waa la kariyey si sahlan subag haddii lagu daro caano lagu daro qofka ilmaha yarka haddii la siiyo waa nafaqo xoog leh marka waxaas marka intaas waa introduction ama wax uu qof walba ka fahmi karo barnaamijkan detoxiga maxaa ku jira
kusoo dhawaada mar walba waxaan kusoo dhawaynaynaa caafimaadka dabiiciga dadka inta badan waxay barteen skin care-ka maaragtay organiga aan gadno oo jirka lagu qurxinayo haaraha mayga qaadaya ma quruxsanaanaya waxaasoo dhan quruxda intay ka bilaabataa marka jirka la nadiifiyo ee waxaan ka baxaan intaa kalena way anfacaysaa lubaantii malmalkii markaa isticmaasho caafimaad bay ku siinayaan haddana way ku siinayaan glowing skin marka laakiin gudaha waa inaa laga shaqeeyo gudaha number 1 waxa anaga aan ka shaqeynayna waa intaas marka insha Allah soo dhawaada saliidihii waa kuwan xabkii waa kuwan iyagoo powders ah biyihii waa kuwan marna laga dhigay marna biyo caadi ah oo iyadoo biyo lagu daray marna lagu daray laga dhigay juice hadda xabag cadaadi waa tana dadka inta badan xagaa kaliyaha nalka haya kaliyaha qof xanuunsan qof kaliyaha fariista dad badan ay la soo hadlayaan waa tan xabag cadaadi 1 liter hadii lagu dhigo hal qaado sidaas ay noqonaysaa marka la walaaqo qofku iska meeri kara hadii uu yiraahdo waxba ku jirjira hadii kale toos waa loo cabi karaa ama fruitka ku shiidan kartaa cassava ku shiidan kartaa sweet potato ku shiidan kartaa waxa ku shiidan kartaa fruitska ku shiidan kartaa papaya waxa ka dhigan kartaa marka hadii la shaah waa laga dhigi karaa anaga shaah waan ka dhignaa marka insha Allah waxa soo dhawaada bari doona haduu Ilaahay raad soo dhawaada kan waa detox program kan insha Allah isagoo qoran dadka PDF isagoo han u diraa laakiin hadda kadib practical way u arki doonaan iyo maxaa anaga u dooranay cuntooyinka noocan in ay ku jiraan 45 days in qofka jirkiisa la dhaqo laga nadiifiyo waxa soo galay qofkii raba oo mesela qof xanuunsan haduu jirana waa 3 bilood waa 45 days ama 45 maalin iyo 45 maalin waa 3 bilood mesela qof waxa jirta cancer tuu ku dhacay meel dheer la gaaray heer tubo lagu xiray waxaan oo dhan macal hilibkii iyo wixii dhan la isku shiiday qaado xataa haduu qaado karo qofka nus koob ayaa loogu shubay tubada even qof cuntada ka xiranta xataa wuu u furmaa insha Allah hadii endiga saliidahana siinaa dadka dhuunta ka xirantay alxamdulillah inta badan way furmaan markii hadana gudihii nafaqa ay soo gashay wax aan la daaweyn karin ma jirto Allah ayaa caafimaadka haya Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajeenaa inuu ida caafiyo qof walba xanuunsan annagana Ilaahay uu na caafiyo hadaa waxaan ognahay hadii jir iyo waxaan ogeynba Ilaahay inuu naga qabto dadka dhan Ilaahay caafimaadka inuu soo celiyo marka detox programka waa wax ugu weyn oo wadno skin care ku ka weyn yahay wax any other program oo wadno ka weyn yahay soo dhawaada barnaamijka soo saarida insha Allah ta'ala waan soo dhaweynana free consultation BBS Mall LGB or LGE 159 noogu imaada haddana waxaan ku darsanay dukaanka LGE 170 halkaas oo cuntooyinka aan ku gadayna dadkana ku bareen insha Allah marka soo dhawaada waa kaasa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh